كثير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إلهي سبحانه وتعالى nimcooyinka ugu waaweyn ee uu na siiyey waxaa ka mid ah bisha ramadaan oo gebagaba maraysa. waxaa ka mid ah bishan khayrka iyo wanaagga ku jirta, bishan ilaah subxaana wa tacaala uu ugu talagalay addoommadiisa inay ka helaan dembi dhaaf. walaalayaal, shalay bay ahayd indhaha dadka mu'miniinta ah inay ka daadanayeen ilin farxad ay u qabaan quduumkii soo gelitaankii ramadaan, waayo waxay ogaayeen inay timid bil ilaahay ugu talagalay subxaanahu wa tacaala, bil ayaga dembiga loogu dhaafo, naxariis alla ay ku helaan, naarta looga xoreeyo. sidaa darteed ayaa maantana waxaa ka qubanaysa ilin murugyo ah, waayo dayfkii qiimaha badnaa baa sii tegaya. walaalayaal, faaruqitaanka aadna faaruqaysa ramadaanow la maxsuunuun, waa ka murugaysannahay, waayo waxaa naga tegaysa bishii iimaanka, waxaa naga tegayoo gebagaba ah. walaalayaal, bishii rabbi subxaanahu wa tacaala dhexdeeda uu yeelay khayraad iyo barakooyin badan. mar allaala markay tagtay rawaxda, walaalayaal, waxaa dhici karta inay dad fara badan ka tagtay aan loo dembi dhaafin, aan qoorahooda naarta laga xoraynin, hal maalin aan soomin, rabbi aan u dhowaan subxaanahu wa tacaala. waxaase ka murug badan oo ka naxdin badan dadka xaaladoodu saa ay tahay inay yihiin dadka loogu talagalay inay ramadaan ka dambe gaari doonin. innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun. man xurima khayrahaa faqad xurim. qof allaala qofka khayrkeeda laga qadiyo, laga xaaraantinimeeyo, aan la siinin oo aan helin, waa qof la xaaraantinimeeyey, waa qof macnaha hoogay, waa qof dulloobay, khayr oo dhanna laga xarimay. walaalayaal, yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaam. war dadka iimaanka laga helay buu yidhi ilaahay, waxaa korkiinna lagu qoray siyaam, waxaa laydinka rabaa inaad soontaan. yaa ayuha aladiina aamanuu, naada rabbi xaggii ka timid waaye, waxaa inooga timid khaaliqa, boqorkiinna qalqay, ilaahiinna abuuray. yay u socotaa in allaala inta iimaan leh oo wiil ah oo gabar ah oo rag ah oo dumar ah. yaa ayuha aladiina aamanuu, qof iimaan leh ma maqlo ilaa waa istaagaa, ilaa waa soo baraaruga, ilaa waa soo jeestaa. waayo yaa ayuha aladiina aamanuu qur'aanku markuu tilmaamo waxbaa laga reebaa ama waxbaa la faraa. maxaa loo yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu? ayagaa wax maqla, ayagaa aayaadka alla dhegaysta, ayagaa ilaahay naadadiisa u dheg raariciya. war dadka iimaanka leh ee jecel inay imaqlaanow, war dadka iimaanka leh ee i rumeeyeyow, war dadka iimaanka leh ee rabbi amarkiisa qaadanayow, hee kutiba calaykum asiyaam. soom baa laydinku qoray, sooma. isla markii amarkay qaataan. haddaan soonna maxaan helaynaa? haddaan soonna maxaa noo ballan qaadaysaa? haddaan soonna maxaan noqonaynaa? maya, isla markii amarka allay fuliyaan, isla markii diinta allay ku dhaqmaan. yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaam. sooma buu dhaha ilaah subxaana wa tacaala. haddaba hala sooma ma sahlana. maalintii oo dhan waxa cunin adoo baahan, maalintii oo dhan waxa cabin adigoo ooman, maalintii oo dhan ha gudanin shahwadaada xalaasha ah adoo u baahan. markaasaa la sabar geliyey
oo la yidhi idinka keligiin maahane kamaa kutiba cala aladiina min qablikum waa dadkii adinka idinka horreeyey sidii loogu qoray oo kale aan soonni maxaan helaynaa hadda lacallakum tattaquuna inaad cabsataan baa la arkaa buu yidhi ilaah subxaana wa tacaala war waa cabsanaysaan soonka cabsi buu idiin siyaadinayaa alla ka cabsigiinaa badanaya alla ka cabsi siyaadaad helaysaan alla ka cabsiga waa sacaadada adduun iyo ta aakhiro waxa lagu helo bishii lagu helaayaan ku jirnaa bishii la baranayaan ku jirnaa lacallakum tattaquun oo macnaheedu ay tahay qofka saa'imka ah ee sooman asagoo baahan ama ooman ayaa laga yaabaa inuu arko asagoo keligiis ah cunto iyo biyo iyo baad cunto iyo biyo iyo baad intaasoo dhan asagoosa u sii baahan ayaa laga yaabaa inuu arko ayadoo xaaladiisu ay sidaa tahay ayaa waxaa dhacaysa inuusan gacan u taagin waa ooman tahay maxaa u cabi weysay waad baahan tahay maxaad u cuni weysay shahwadaadii baa ku haysee maxaad u gudan weysay lacallakum tattaquun inaad cabsataan baad mudan tihiin alla ka cabsi gacantuu u haatin waayey waa ilaah buu ka cabsaday waa cuni waayey waa ilaah buu ka cabsaday waa cabi waayey waa ilaah buu ka cabsaday wuu jimaaci waayey waa ilaah buu ka cabsaday subxaana wa tacaala lacallakum tattaquun mar allaala markaad soonka saan u barataan soonku waa dhammaanaya wixii lagaa xaaraantinimeeyey sida aad biyaha iyo baadka gacanta ugu taagi weysay oo kale uga joogso sidii aad soonka ood u samayn weysay wixii ilaahay kuu diiday oo aad ilaahay uga cabsatay maalmaha kale xumaanta macaasida dembiga waxa alla diiday saasoo kale markaa uga cabso lacallakum tattaquun inaad cabsataan baa la arkaa buu yidhi ilaah subxaanahu wa tacaala ramadaan waa bil aan jecelnahay wayna jeceshahay walaalayaal sanadkii hal mar bay nagu soo gaaf wareegtaa way timaadaa mar allaala markay timaado qolo badan oo sanadkii hore ay qaabishay aragtay amase ay goobjoog ahaa ayay adduunka ka weysaa hadday baxda walaalayaal soo noqodkeeda dambe dad badan oo annaga naga mid ah oo ramadaankan soomay oo qiyaamay oo rabbi u dhowaaday bay weyn doontaa si aysan u dhicin khasaaro aan ka faa'iidaysano saysan u dhicin inaan ku khasaarno aan maanta ka faa'iidaysano lacallakum tattaquuna inaad cabsataan baad mudan tihiin meeqa qof oo ciidda ka hoos maray walaalayaal waynala qiyaameen waynala taraawaxeen waynala ciideen waynala soomeen hadda aaway qof walbo maalin baad saa noqon doontaa qof walbo maalin bay ramadaan ku wey doontaa maalin bay ramadaan ku tabi doontaa maalin bay ramadaan markay timaado adi iyo iida aadan is arki doonin xaaladda intaan la gaarin baa laga faa'iidaystaa walaalayaal ramadaankii 10 dambaanu maraynaa gebagabaanu ku jirnaa in badan baa ka faa'iidaysatay hanii'an lakum in badan baa ka faa'iidaysan weysay in badan baa xumaan iyo waxyaabo kale ku sagootiyey kuna soo dhoweeyey cidka muslimka ah waa inaad rabbiga ogaato daacada alla ku socoto ramadaan bilaha kale yaysan kaa la mid noqonin naxariis ilaahay darteed ayaaman macduudaad maalmo tirsan soomaa nala dhahay nalama dhihin sanadka oo dhan sooma goormee soomaynaa maalmo yar 29 maalmood kama yaraato 30 kama badato sida ilaahay uu u tilmaamay subxaanahu wa tacaala dadka soonka yaqaana waxay tamaninayaan oo ay jeclaanayaan sanadka oo dhan inuu soo noqdo nafaxaadka naxariisaha iimaanka nasidka buuxa sida laysugu naxariisanayo sadaqada la bixinayo darteed laakiin xikmadda alle ayaa wax kasta ka weyn ayaaman macduudaad waa maalmo fara ku tiris ah diinta naxariisteeda horay ugu sii soco faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin faciddatun min ayaamin uqar qof kastoo mariid ahoo buka qofkii safar ku jiroon dhulkiisa joogin ha cuno hana cabo dib dambana ha ka keena buu dhahay ilaahay subxaanahu wa tacaala naxariista ilaahay fiiriya ayadoo saa ay tahay oo raxmadda allay nagu qubinaysaan ramadaan ku sii dhex jirnaa walaalayaal ramadaan waa tadriib ramadaan waa tababar ramadaan waa bil ilaah subxaanahu wa tacaala ummadda uu ugu talagalay naxariis dheeraada inay helaan nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu wax badan tilmaamay kana hadlay qiimaha soonka uu leeyahay tababarkan aan qaadanay
mar allaala markuu soon ku dhammaado 11 bilood uu naga maqan yahay ayaa la rabaa in alla ka cabsiga hadda la bartay walaalayaal lagu sii socdo la sii laba jibaaro ilaa ramadaanka dambe uu ka yimaado haddii rabbi idmo subxaanahu wa tacaala rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam camal walbo oo bini aadam ku qabsado asagaa iska leh ilaa soonka ma ahane tashriifkiisa fiiri haddana kullu camal ibni aadam lah camal walbo bini aadam ku samaysto asaa iska leh soonka ma ahane fa innahu lii anaa leh buu yidhi ilaah subxaanahu wa tacaala ilaa soonka ma ahane fa innahu lii wa ana ajzi bih anaa leh anaana abaalgudaaya anaa abaalkiisa bixinaaya soonka adaa soomay sakada adaa la baxay xajka adaa xajiyey xijaabka gabadha adaa qaadatay sadaqada adaa dhiibay intii oo dhan adaa sameeyey soonkana adaa soomay laakiin allah loo tiiriyey subxaanahu wa tacaala intaanoo kale adaa lagu soo leexiyey waa tashriif waa sharaf gooni ah oo soonku leeyahay waa cibaadada sirta ah ee ka dhaxaysa ilaahay iyo addoonkiisa subxaanahu wa tacaala wariyaa og qofkaas inuu soomaya in kaloon ilaahay ahayn subxaanahu wa tacaala wariyaa i og inaan soomanahay oon alla ahayn inaan soo cunon cabo oon dhexdiinna soo fadhiistaan idin dhihi karaa waa soomanahay cariyaa i dhihi kara ma soonid ka bax masaajidkoon ilaahay ahayn subxaanahu wa tacaala fa innahu lii anaa leh anaa iskale buu ilah leeyahy subxaana wa tacaala war tashriifkii camalkii noocaasaan ku ciyaarnay waa la soomaya dibnada la ciyaara waa la soomaya leedhuba la ciyaara waa la soomaya turba la ciyaara waa la soomaya walisxamana waa la soomaya aflagaadaa jirta waa la soomaya soonku muxuu noqday walaalayaal ma beriis iyo caano laga tagaa ma insoorta iyo muuskii wax lamidka laga tagaa maxaa dhacon camalkeenna soonka uga dhigi weynay camalkii ilaahay xaggiisa xaqiiqda ka ahaa walaalayaal fa innahu lii anaa leh waa ku ciyaaraysaa anaa leh waxbaad ku dhex xamanaysaa ilaahay baa dhahaya anaa iska leh xumaan baad kusii dhex samaynaysaa saa darteed soonku yuu soonku noocaan noqonin qofkaan ka tegin qowl zuur qofkaan ka tegin camal lagu camal qabta zuurka ilaahay dan iyo xaaje kama laha inuu tacaamkiisii sharaabkiisa ka tago maxaad cunto xalaalo uga tagtay haddaad xaaraan ku afurayso fa innahu lii wa ana ajzi bihi waa cibaadada noocaa ah waa cibaadadaa sare shalay bay noo timid maanta waa naga sii sagootinaynaa way naga sii socotaa walaalayaal ma naqaana xaalkeenna suu yahay ma naqaana soonkeena meeshuu alla agtiisa ka gaarsiinsan yahay war badanaa oo badanaa saa'im soomay soonkiisana aan ka faa'idin ilaa baahiyii oon maahane maantoo dhan buu soonnaa waa la addimay timir buu cunayaa sanbusuu cunayaa waxbuu cunayaa alla agtiisana wax uma yaalla subxaanahu wa tacaala wallaahi haddaan ogaan lahayn hal rakaco hal salaad oo nala ka aqbalo ilaahay baan sujuudu shukri ugu dhici lahayn dadka odh wanaagsan baa dhihi jiray waxay isku darsan jireen cabsi iyo camal wanaagsan amni iyo camal xumaan isku darsanay walaalayaal aaminna waa nahay camalkeennana ma fiicna waxaan aamin ka noqonay makriga alla subxaana wa tacaala wax fiicanna ma hayno 6 bilood allay ka baryayaan inuu ramadaan gaarsiiyo 6 bilood oo kale allay ka baryayaan soonkay soomeen inuu ilaahay ka aqbalo subxaanahu wa tacaala sanadkii oo dhan afkooda ramadaan baa ku jira marna ay leeyihin allahuma balliqna ramadaan marna ay leeyihin ilaahu soonkaan soonnay naga aqbal maalinta soonka afka la furo yaa soon magaciisa noogu dambeeya maalintii ramadaan afka la furo ciidda la ciido soonka dambe allahna gaarsiiyo 6 bil baa la cabsanaa oo la leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala ay leeyihiin ilaahu naga aqbal waa soonkaan soonnay haddaba ilaah wuxuu leeyahay ila soonka ma ahane fa innahu lii anaa leh wa ana ajzi bihi anaa abaalkiisa gudaaya soonka buu ilah yidhi subxaana wa tacaala intaa maxaa lagu daray soonku waa wiqaayo waa jun waa gaashaan soonkan aad u jeeddaan ma sahlana wuxuu wiqaaye u yahay kaaga yahay naarta adi ii naarta maxaa idin dhexayn kara soonka adi ii macaasida maxaa idin kala teedi kara waa soonka man saama ramadaan iimaanan waxtisaaba غفر له ما تقدم من ذنبه قفكي رمضان صومه una sooma iimaan una sooma ixtisaab waxa la dhaafaa dembigiisa wixii tegey dembigiisa wixii tagaa ilaahay saamaxa subxaana wa tacaala baahidana hayse ma taqaaniin ma naqaano baahidana hayse waxaan u qaadanay dumarkana dahab raggana doolar
baahidana haysa ma aha dahab iyo dollar walaalayaal baahidana haysa waa dembi dhaaf baahidana haysa waa in ilaahayna cafiyo subxaana wa tacaala baahidana haysa waa in ilaahayna dhahaa addoonkaygu waan ku cafiyey waa kuu dhaafay haddii ilaahay ku dhaho waa ku cafiyey waxa kaloo kuu dhiman maxaa waaye waxa aad dalbaysa maxaa waaye waxaa raadinaysa muxuu yahay caaisha rasuulka u timid oo tiri yaa rasuul allah haddaan ogaada leyla ay laylatalqadri ay tahay maxaan ilaahay ka barya subxaana wa tacaala maxaa dhahaa gabar caqli badan laylatulqadri haddaan ogaado hadday ii suura gasho haddaan arko maxaan ilaahay weydiistaa oon dhahaa rasuulku muxuu ku yidhi quulii allaahuma inaka cafuwun tuxibu alcafwa facfu canii waxaad dhahdaa ilaaha cafinta jecelow iska keey cafi allow isaamax allow ii dembi dhaaf waa caaisha radia allaahu canha caaisha waad maqasheen gurigeeda makhribka marka la gaaro faynuustaa damaysaa gaas lagu shubo ma laha nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam hadduu rabo inuu qiyaam u kaco oo qiyaamuleyl uu tukado ma u jeeda meeshuu ku tukanayo ku sujuudayo mugdi daraaddeed lugteedu iska dhaqaajinaa ama qajaruufana sala allahu calayhi wasalam 3 bil baa laba noo dhammaato tii saddexaad noo dhalatay aan gurigeena canjeero laga dubin aan dab laga shidin macnaha maxaa la yidhi ilaahu dahab isii dheh lama dhihin ilaahayow shab ayaan rabaa dheh lama dhihin ilaahayow guriga iga beddel dheh lama dhihin waa adduun walaalayaal warkii shalay joogaa maanta ka maqan ka maanta joogaa beri ka tegaaya daaraha dhaadheer aad u jeedaan agarkooda dadkii dhintay aboor baa cunay walaalayaal maanta qabriyay ku jiraan way jeclaan lahaayeen inay nasiibkaan leenahay yeeshaan adduunka yimaadaan hal maalin ay nala soomaan laakiin hayhaata ma dhacaysa walaalayaal annagana maalin bayna qabsan doontaa maalin bay nagu dhici doontaa maalin baa saa noqon doonnaa maalin baa waxyaabo badan oo weyl iyo halaag ah aan u wacan doonnaa intaan la gaarin yaa fiican maanta in la dadaalo maalin baa la dhihi doonaa rabbi lowlaa akhartanii ilaa ajalin qariib muxuu samaynayaa fa asadaqa wa akun min alsaalixiin waa celinaa maanta war qof baahanaa jira war qof dhibaatan baa jira war qof aan kici karin baa jira war qof aan afur haysanin baa jira marka qarqaradu ay soo gaarto qofku sakaraad ku yimaado yuu dhahayaa rabbi lowlaa akhartanii ilaa ajalin qariib fa asadaqa wa akun min alsaalixiin waxaan jeclaan lahaa inaan wax baxsado goormay wax baxsanaysaa waxaa jeclaan lahaa inaan saalixiinta ka mid noqdo goormay saalixiinta ka mid noqonaysaa quulii allaahuma inaka cafuwun tuxibu alcafwa facfu canii ilaahay hadduuna cafi lahaa ilaahay hadduu cafiskiisa heli lahayn rabbi waxaan ka baryaynaa inuuna cafiye walaalayaal dariiqa aan ku socono aan ka dhigna dariiqa cafinta alla lagu helo ramadaan markuu kow ahaa odayaal baa sheekaysanayey ganacsataa sheekaysanaysay meeqaan ka dhignaa meeqaan ku siyaadinaa waa bishii la taajiraayey war ma taajirin haddaysan soon wanaagsan iyo qiyaam fiican qiyaamin waxaase taajiray oo ribxay qofka soomay ilahna soonka ka aqbalay subxaanahu wa tacaala waxaa liibaanay qofka inta qiyaamay qiyaamka alla ka aqbalay waxaa liibaanay qofka rabbigii caabuday taacada alla ku dadaalay man qaama ramadaan iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min denbihi qofkii ramadaan istaaga una istaaga dembi dhaaf weydiisi macnaha ixsaan u istaaga iimaan rumayn iyo ixtisaab iyo ixtisaab gufira lahu maa taqadama min denbih wax allaala waxa dembigiisa ah yaa ilaahay cafinaya subxaanahu wa tacaala walaalayaal aan noqono dad baraarugsan aan ogaana bishii khayrka inay gebagaba tahay aan ogaana bishii khayrka inay tagayso aan ogaana bisha khayrka inay nagu soo noqon doonto annagoo joogna iyo in kale inaanan ogayn tii noogu dambaysay hadday tahayna inuu rabbi nooga dhigo kuwii laga aqbalay tay wax noo dhiman yihiinna inuu ilaahay sooman fara badan oo dembi dhaaf aan ku helno ilaahayna gaarsiiya subxaana wa tacaala dhihi mayno aan lacag badan ku helno dhihi mayno ay badeecadu noogu baxdo dhihi mayno uu burku noogu gadmo dhihi maynay saliiddu noogu gadanto laakiin waxaan dhahaynaa soon ilaahay naga aqbalo subxaanahu wa tacaala soon ilaahay noogu dembi dhaafo subxaanahu wa tacaala soon ilaahay agtiisa khayr iyo wanaag aan kaga gaarno taasaan markaa tilmaamaynaa soonku waa jinni waa wiqaayo waa gaashaan qofka ayuu gaashaan u yahay naartuu ka gaashaaminayaa nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam haddii aakhiro la tago waxaa la furayaa albaab ka mida albaabaha jannada rayaan baa lagu magacaabaa waa baabu rayaan waxaa ka gala saa'imiinta
waxaa ka gala dadka sooma, waxaa ka gala dadka saa'imiinta ah, waa la furayaa. munaadi baa naadinaya, ayna saa'imuun, aawe saa'imiintii, war aawe dadkii soomi jiray, war aawe dadkii baahida iyo oonka u adkaystay, war aawe dadkii haajirada iyo kuleelka duurka oonka ku sabray, ayna saa'imuun, istaaga. albaabka rayaanka gala. allahu akbar. ka war haddaad ku jirto ood istaagto ood socoto oo baabu rayaan aad ku sii tallaabsanayso, farxad intee la eg badana. ka war haddaadan ku jirin laa ilaaha ila allah, haddaadan ka mid ahayn ayna saa'imuun, waa fadhisaa. ilan qof ayaga ahayn oo kici kara ma laha, meel lagu dhuunta ma aha, ina adeer ma joogo, qabyaad laguma galo, cadaalad baa lagu galaa. qof shaqeeyey oo taacada alla ku dadaalaa gala. ayna saa'imuun, istaaga. waa istaagayaan buu dhahay nebiga sala allahu calayhi wasalam. albaabka rayaan bay ku tallaabsanayaan, wayna ka gelayaan. axadka ugu dambeeya markuu gala albaabka waa la xiraa. qof ayaga ahayn oo gelaya mala buu dhahay nebiga sala allahu calayhi wasalam. ma soome, bannaankuu taagan yahay. ma soonte, bannaankay taaganta. aawa dadkaan soomin, cudurdaarna lahayn. war aawa dadka soonkuu dhibo, dad soonka ka naxaa jira, dad soonka dhibayaa jira, wax kalena uma dhibayee waa iimaan la'aan. yaa ayuha aladiina aamanuu intubayna ku jirin, ilaahay iimaanka uu dadka ugu magacaabaysan ku jirin. qole waxaa jirta beri soon waaye marka la dhaho xanuun ku bilowda, gaas aysan qabin baa ku bilowda, ber xanuun aysan qabin baa ku bilowda. maalinta la dhaho beri ciid way caafimaadaan. laa xawla walaa quwata ila billaah. soonka qiimaha uu leeyahay haddaan ogaan lahayn, xaaladdaa nisaan ma noqon lahayn. dad baa 6 bilood ilaahay ka tuugi jira, ilaahu igaarsii, ilaahu igaarsii, allahu igaarsii. dad annaga naga mida marka cishaa'iga la tukado ee la istaaga taraawiixda habeenka ugu horeeya, maxaa dhacay buu leeyahay, maba la socdaba, lama socdo. aaw diyaargarowgii aakhiro, war aaway aakhira diyaargarowgii loo diyaargaroobaayey. diyaargarowgeennii diyaargarow adduun muu noqday, diyaargarowgeenna diyaargarow akoon muu noqday, diyaargarowgeenna diyaar guur muu noqday, diyaargarowgeenna diyaar baabuur la raadiyo, guryo la raadiyo muu noqday. walaalayaal, waxaan adduunkaa looga tagaa saa tilmaannay. waxa ku anfacay waa camal saalix, waxa ku anfacay waa ramadaan aad soontay, waxa ku anfacay waa tilaawo qur'aan oo aad akhrisay. saa darteed saa'imiinta way gelayaan. axad ayaga ka mid ah, axad ayaga ka mid aho, axad ayaga aan ka mid ahayn oo gelayana ma jiro. bannaankay taagan yihiin. ayna saa'imuun, saa'imiin aaway. saa'in muxuu yahay? soonse maxaa laga wadaa? soonkan hadda tilmaannay ma aha, waa soon cibaado la socota, waa soon aan dad lagu dhicin, waa soon aan dad lagu qiyaanin, waa soon aan ribo lagu cunin, waa soon aan dad lagu xaman, waa soon aan dhiig lagu daadinin, waa soon ilaahay dartii loo soomay, xaaraanna aan lagu afurin. ayna saa'imuun wasaa'imiina wasaa'imaat. aw wiilashii soonka badnaa, awa gabdhihii saa'imaadka ahaa ee soonka badnaa, albaabkaasay ka gelayaan. idan walaalayaal, soonku saasuu wiqaaya naarta kaaga noqonaa, macaasidana wuxuu kaaga yahay xijaab iyo gaashaan. nebiga intaa wuxuu ku daray sala allahu calayhi wasalam, hadday dhacdo inuu maalin axad idinka mida sooman yahay, yuusan rafad samaynin, yuusan buuqin, yuusan suuqa ku qaylinin, waxyaabo fara badan oo arrimooyinkaas ha iska ilaaliyo. hadday dhacdo fa in saabahu axad aw qaatalah falyaqul innii saa'im. waa soomanahay. waraa caytamin, saa'im baa tahee. saa'im ma caytamo, saa'ima dad lama dagaasho, saa'im dadka ma xanto, saa'ima dadka ma xamato. haddiise ay dhacdo in lagu maago adoo iska fadhiya lagu gardaraysto, waa soomanahay dheh. walaal idhaaf, afkeyga ilaahay uu xiranaya subxaana wa tacaala. falyaqul innii imru'u saa'im, shakhsi saa'imaan ahay dheh. maxaa intaa ka baranaynaa? waxaan ka baranaynaa xilmi iyo dulqaad, inaan sabri karno, inaan adkaysan karno, inaan ummadda cafin karno. soonkaa laga bartaa. waa sooman tahay qofaa ku cay labaad ugu jawaabtay, waa sooman tahay qofaad arbaca kugu dhuftay laba iyo haraatiya isugu dartay. falyaqul innii saa'im. walaalow idhaaf, ani mas caytamaayo, ma kula caytamaayo dheh. war ani wax mi ihi dheh qof oo xumaan ku afuraaya. wuu ku caayey innii saa'im, wuu ku haraatiyey innii saa'im, dhib buu ku gaarsiiyey innii saa'im. wuu xishoonaya. innii saa'im, difaac weyn bay kuu noqonaysaa marka. nebiga intuu dhaartay sala allahu calayhi wasalam ayuu yidhi khuluufka, karka iyo urka qofka saa'imkaa afkiisa ka soo baxa atyab cinda allah min riixi lmiski. wasaqda afkaa ka soo baxayso. ka wara camalka fiicnayd qabato,
ka waran camalka fiican oo aad samayso, ka waran salaada iyo tilaawada qur'aanka iyo dikriga iyo sadaqada, urka afkaaga ka soo baxay ayaa wuxuu ka caraf batay riixda miskiga ah. min riixil miski way la caraf eg tahay ma aha, way ka caraf badan tahay. waayo iyuu carfi weysay. waa af ilaahay lagu xusay subxaana wa tacaala, af lagu soomay soo ma ah, af taraawiix lagu tukaday, af qiyaam lagu sameeyey, af qur'aan lagu akhriyey, af ilaah subxaanahu wa tacaala lagu weyneeyey. markaasuu ilaah tilmaamaya uu leeyahay adyabu cinda allah min riixi lmiski. qofka hadduusan muddo wax cunin afkiisa takyiir baa ku dhaca, doorsoon baa ku dhaca, waa isbedelaa, dadkaa dhibsadaa, weligood ha dhibsadaano. adyab cinda allaahe min riixi lmiski. miskiga riixda waa kaga caraf badan tahay buu yidhi rasuulka sal allahu alayh wasalam. tuwaaka maa lagu cunay waa maya, qaad maa lagu cunay walaalayaal waa maya, khamre maa lagu cabay waa maya, sigaar maa lagu cabay waa maya. allaahu akbar. adyab cinda allah min riixi lmiski. riixda miskiga way kaga caraf badan tahay buu leeyahay rasuulka sal allahu alayh wasalam. lisaa'imi farxataan. ninka saa'imka wuxuu ku gebagabeeyey xadiidka laba mar buu farxaa. marka koowaad ee uu farxaayo waa marka la afuraayo. muxuu ku farxayaa? afurkiisa. ilaahay yaa u fasaxay subxaana wa tacaala. maantoo dhanna waajibkii alluu gutay subxaana wa tacaala. waa soonnaa maantoo dhan, amarkii allana waa qaatay, ma suuxin, ma dhimanin, wadna uma istaagin. haddana cuntadii xalaasha ahayd ee ilaahay uu ka reebay yaa la dhahay cun. allaahu akbar markuu dhaho mu'adinka, bismi illaah, timir buu cunayaa, biyuu cabayaa, sambuusuu cunayaa, kackac buu cunayaa, mashmash buu cunayaa, nafaquu cunayaa. masii wadaa waxyaabo badan oo noocaas ah ayuu ilaah subxaana wa tacaala u fasaxay oo la yidhi cun. idan waa farxaya. marka labaad ee uu farxaya saa'imka waa goormee? waa markuu ilaahay la kulmo subxaanahu wa tacaala. allahu akbar. ilaahay buu hortaagan yahay. muxuu sugayaa jazo, muxuu sugayaa abaal, muxuu sugayaa mushqaayadiisa, muxuu sugayaa raatibkiisa. suuq ninka ka shaqeeya marka 30 maalmood ay u dhammaato farxad meel isdhiga mala sama. muxuu ku farxayaa? dhididkiisii. wixii uu shaqaystay baa la siinayaa abaalkiisa. laga yaaba xaloo dhanba inaysa hurdo ku soo dhicinba bir marka bisha la qaadanayo. waayo farx waa ku farxayaa, waayo asaa shaqaystay. ka waran haddaad ilaahay hortaagan tahay maanta subxaana wa tacaala, haddaad maanta rabbi hortaagan tahay oo aad sugayso abaal uu kugu talagalay inuu ku siiyo. ninka suuqee booskaaga ah laga yaabee marka lacagta lagu siinaayo in liis lagula soo baxo. bisha 4teedana waa maqnayd, 8deedana waad goysay, maalintaana waa soo daahday oo wax lagaa gooyey soo maa. meequu ku shaqaynaya? 15 kun, 20 dheh, 30, 40, 50 ba gaarsii. oo intaa lagaa sii jarjaraayo ayaan ku faraxnaa walaalayaal. laga yaaba salaad la'aan inaan ku shaqaynay, laga yaaba gabadhiis duukaanka soo gashaba inay kaa baxsan weysay, laga yaaba dhib iyo xaaraan iyo waxyaabo kale inaad isgadaal marisay. kaasaa lagu farxaye soon nadiif ah, alle dartii loo soomay, boqorka rabbulcizaad hor taagan tahay, waad sugaysa inuu ku abaalgudo. farxaddaada maxay noqon doontaa walaal? iska soo qaad adiga oo ilaahay hor taagan subxaana wa tacaala. dad waxaa jira ilaahay markay hortagaan aan madax kor u qaadi karin. walow taraa id ilmujrimuuna naakisuu ru'uusihim cinda rabbihim. maxay leeyihiin? rabbanaa absarnaa wasamicnaa farjicnaa nacmal saalixan innaa muuqinuun. markay ilaahay hortagaan haddaad arki lahayd mujrimiinta, naakisuu hoosay u dhigayaan, waa foorarinayaan madaxyaalkooda. xaggay joogaan? cinda rabbihim. war rabbigaa hortiisa haddaad ku madax foorarisay maxaa ku yaala meesha? waad rajayn weysay ilaahi subxaana wa tacaala, ood sugi weysay abaalgud uu ku siiyo. maxaa ilaahay agtiisa ku yaala subxaana wa tacaala? waa ma jirto. naakisuu ru'uusihim cinda rabbihim rabbanaa absarnaa. maxay arkeen? jahannamo. wasamicnaa. maxay maqleen? guuxeedii qayladeeda. rabbanaa absarnaa wasamicnaa. maxay codsanayaan marka? farjicnaa. allowna celi. xaggee loo soo celinaa inta? maxay rabaan? inay camal fiican sameeyaan. farjicnaa hee nacmal saalixan. camal fiican aan qabano. dhihi maayaan aan tukaamada ku noqono, dhihi maayaan aan daaro kala jeexano, dhihi maayaan aan mataqaanaa gawaari kala iibsano, dhihi maayaan aan akoonka soo fiirino, dhihi maayaan. maxay leeyihiin? nacmal saalixan innaa muuqinuun. haddaan yaqiinsanay, haddaan yaqiinsanay, hadda aan yaqiinsanay inta inta joogno. xagga yaqiinteeda waxba ma anfacdo. ilaahay markuu tilmaamayo muxuu yidhi wabilaakhirati hum yuuqinuun ulaa'ika calaa hudan min rabbihim
وأولئك هم المفلحون ولا ليال رمضان أيان إحدى أجرنا إن الله لا أنت تقصير إيجابات فلنا قد عضي أنت نور موك جالسين كرنا ربي بان لنا يدم بداف بدن ربي بان لنا يعفين بدن ربي بان لنا ينودم بدافة وحي قلدوا أن كسر لابننا نور دافة يعني استمرار دنبيجا يا دنبيجا جوكتين أنا ينقص عنين أن نقنا ضد رمضان كأد وقفة إذا سببتنا وحي تعطور رمضان يماذو البابها جنة ضم بلقا هل الباب أو جنة كمدة أو ساعدا حرا مجرت ولا ليال البابها النار تأذن ولا حرا هل الباب أو نار كمدة أو فرنا ملها ما حسوهري كوبينا دبي دنبيجا ندح جلي حرانتنا عنسيي حمانتنا قرحيي وناجنا حميي قضي الشيطان أها وسفدت الشياطين أين كتيرت بالله قدفتا ولا حرا جوي قاسم كنا الله ما أنت ولا ليال جوي وحن كنا الله جنادو أي فرنت سمدو أي فرنت هاي نارتو أي حرنت هاي شيطان أو حرية هاي جوي قام حكو فينا جوي قام حكو ونكسنا والله كم ونكسنين إلا فرست مقايد الباب كوده كم ونكسنين قيل وقال إن لي رهده فدي قدر لك شيء والله كم في عينين لكن آوي عقلي كيس من دان نفسه عقله وانك نفتي حسابه ونشق يستجيري كذا شيء ذا عاجز ضقن أحمق ضبال وانك نفتي سكتمنية الله كود بدافع دونا هل كاسو فديا صلاة عشائية صلاة مغرب كا ركعة قدام بيسا أيو كسو جارة كرسي وقفك أجوهري فدي كدرك أسقى فديستا ورمضان سدح مربان دمي بيقول نتابعها شم مربان قرآن كدمي توم بان دمي معلم بوان كدمي جري جوي جاي فهمين أنا وما فهمين ولي جوي وحن أقعدنا كليا أنتم ماشى فديو BBC كده جيستو وحكسو كشيء كرو كشيء مركو سيرة وحيانا بعفر حبو سمبوسي مدرسة كجروتا صون كده إتاسو هسنا ولا ليا صون كيني ساسو نقضي أخيارتني صون كده ساسو نقضي طليلتني صون كده ساسو نقضي دمر كيني صون كده إسكابت ناف بأيجا حدث ولا حرج وحكود إحسوجن يوحكود إحسامين أيان مرك هدي إلهي سبحانه وتعالى نصيب نسيي ولا إدراك سو جارد بالرمضان لسو جارا نصيبها ولا ليال والله ونمع قالي وين إنه إلهي بالرمضان كسو جار سيي أذيك أو نول أو عافمات قبا أو سومي كرا لكن قفكي انت صار له سومر سيي انت لسو جار سيي صونكو كنا ماضي أسجون هل هبين نارتنا لقى ترتيرين أما لقى حرين قورتي سكا ورما سدح مرسو رسولك آمين 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 مدهن مركي وحاكمت أها انت جبريل يرقف الله لقفك رمضان سوغارا هذا أن لو دم بدافن أو ساعة عذابكم متستي كجلا الله كفجي آمين ده آمين بان يربو إلى النبي محو آمين ويري صلى الله عليه وسلم نبينا حريص بدن بوها والله وسولجي أرسنت مرة انت اللي عجيب وقصلي صلى الله عليه وسلم من دير انت دبرك لقى صاروا سيدي إسكاها صلى الله عليه وسلم انت بيجي سيل الدارية بودهي إلهي وكوان هنوني ما أوجا حقيقة سيدة أيتها واي أمانت أمين أودهي واي أودي وجبريل أضاف أبارك كده ومتستي مكو رمضان انتو كوكو بلاوضي او كوكو دول دماضي اون هل هبين لقودن بدافن اون إلهي كون حريصانين ومتستي إنو جبريل نهبارو نبي محمدنا آمين ده صلى الله عليه وسلم ولا ليال رمضان كأن كفى إذي سنو دم بداف أن راد سنو وحن أدونك والله لا وانا لوايا مستقبلك حقيقة ومستقبلك آخره ورقفك انت سوي من النار لو طوري بياكل البلع عبسينا يا مصامي سببت معي تهي بيه ضاف إليه ده ابو عبي سبحانه وتعالى من دي عندي ساقو أي ابو الله سبحانه وتعالى مر الله لمركي وجهك أصي وضان يشوي الوجوه مقارك كدعايو كدادناي ولي ما جاري أفكي مقارك واقبتي وصوهبتي بئس الشراب وسأد مرتفقا انت صدق واحد وقبت بهذه كرنا حرق إله قبصنا وعن وقبت بهذه كرنا بشهر رمضان أو إلهي أن عبدنا سبحانه وتعالى وعن وقبت بهذه كرنا بشهر رمضان أو إلهي سبحانه وتعالى أن كبرنا إنه نجا أقبله إنما يتقبل الله من المتقين متقين إلهي كأقبل سبحانه وتعالى ولا ليال وعن نقول أدون راعي أدون كأسك إلى لنا أدون كان ملء نجينا يا مجره maalintaad wax fahantay ilaa hadda waad joogtaa kurba iyo dhibaato rafaad iyo deyn mushaakil iyo naxtin meehe wax kale wali kama helin laakiin daarta
lagu raaxaysanayo, daarta argagax lagaa ilaalinayo, daarta ilaahay uu kugu nimcaynayo, daaraan laga gaboobin, daaraan laga dhimanayn, daaraan lagu jiranayn, daaraan lagaa saaraynin, daarta aakhira waaye. laa yaxzunuhum alfazacu alakbar watatalaqaahum almalaa'ika haadaa yowmukum aladii kuntum tuucaduun. yoonkeena waa kaasaa walaalayaal. haddaad cuntiyo haddaad qaddo adduunka waad joogaysaa intii alla kugu talagalay. dumarka tii dahab qaadataa iyo tii bulkaati gashataba waa isku mid. waxa loo kala saramaraa waa taqwiya alla ka cabsi. wuxuu qofkaa kale uga koreeyaa ma aha raashin fiicanaan cunaa, nin wanaagsanoo gaari wataa amtaqaana i qaba, gurigayga intaasoo qol laga dhigay, jimco kasta ama ciid kasta alaabta layga bedelaa. weligaa ha lagaa bedelo. haddaad rabbi caabudi weyso naarta lagugu kala bedbedeli doonaa suu ilaahay tilmaamay subxaana wa tacaala. yowma tuqallabu wujuuhum fi nnaar yaquuluuna yaa laytanaa أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. ذهبك آوي بدبدلك آوي قاري عدا آوي وذقي شريفك آوي وعي لغوفري آوي قناع سقاقي آوي وجهك نارت اللوغو قد قدنا بوضعه إليه سبحانه وتعالى. سيدا هيلبك ننك الدباه برت مركو قليو مربطنا أقدقه وساء قد قدية دبكة يا وجه قد اللوغو قد قدنا يا وعياذ بالله. ووجه أن ألا لغو عابدين، ووجه أن لغو سومين، ووجه أن لغو سجودين، ووجه حمان لغو قابلي، ووجه الدون لغو راذيي. من نقن وجه إله لغو عابد سبحانه وتعالى. يوم تقلب وجوه في النار يقولون يا ليتنا هلاك بالله وعنا هلاقيني ومحا إلهي وأتيعي ويني maxaa rasuulku u ateeci weynay, maxaa u soomi weynay, maxaan qanaadii wanaag u samaysan weynay. aطacna allaha waطacna arasuul yay ateeceen. ina aطacnaa saadatana wakubaraa'ana faadalluuna asabiila. jidkii fiicnaa bay naga dhumiyeen. hal maalinna saadaadkii iyo kuwii waaweynaa qaastan kuwa qaaraanka aruuriya intay u yimideen nama dhihin salaada dukada keena unbay dhahayeen. keena ma haya maanta tacsiir baa tahay, war salaad ma tukatay muxuu kuu dhihi waayey. faadalluuna sabiila. jidkii fiicnaa bay naga dhumiyeen. maxay noo dhihi waayeen dumarka hala daboolo. faadalluuna sabiila. maxay noo dhihi waayeen masoomintiin. faadalluuna sabiila. rabbanaa aatihim dicfayni min alcadaab. maxay ka qabanaysa ilaa cadaabka u laalaab dheh weliga. walcanhum lacnan kabiira. waa iskula jirnaa, waa iskula jirnaa bay leeyihiin. maxaa noo lacanadaysaan? mar kastoo ummad la geliya naarta lacanad ukhtaha xataa ida ndaarakuu fiiha. kuwana kuwa waxay ku leeyihiin maxaasaa noo yeesheen. saa i xaalku muxuu yahay? ilaa ay dhaan dhammaanteen dicfi ilaalaab baa ku sugannahaye qof dhaama markaa ma jiro. walaalayaal ramadaan 10kii dan baanu gelaynaa. waa wadaac, waa sagootinaynaa. khayr aan ku sagootino. dadkii wanaag ku soo dhoweeyayo wanaag ku sagootiya. ramadaan wax aad u sii yar asagoo macduudaad ahaa yaa haddana wax ka sii yar ka soo hartay 10kan dambe marka la gaaro. rasuulka sala allahu calayhi wasalam dadaalka waa kordhin jiray, dadaalka waa laba jibaari jiray, dadaalka wuxuu ka dhigi jiray mid intii hore ka badan. nebiga ramadaan wuxuu u dadaali jiray si uusan khayrkeed u dadaalin. 10ka dambena wuxuu u dadaali jiray 20ka hore suusan u dadaalin. sababta maxay tahay? habeen baa laga helayaa, habeenkaasoo ka khayr badan min 1000 shahr. waa 10 bilood walaalayaal. waa fadli ilaahay na siiyey subxaana wa tacaala. bisha ramadaan bay qaas ku tahay, lalama wadaago. bilaha kale lagama helo. haddaan gelaynaa, caaway noo bilaaban haddii rabbi idmo. aad iyo aad ha loogu dadaalo taana. 10kan dambe walaalayaal hoosguntiguu xirin jiray rasuulka sal alla alayh wasalam. wuxuu samayn jiray nebiga cibaadadu u firfircoonaan jiray. axya alleyl waa noolayn jiray habeenkii. habeenkii maxaan ku noolaynaynaa? nalal baa lagu dhadhajinayaa waddooyinka, caleemaha lagu daadinayaa, ubax qoyan baa laa wuxuu ku noolaynayaa cibaado. waa 10ka dambe. qolaa waxay ku fasireen 10ka dambe xataa dumarkuu ka fogaan jiray sala allahu calayh wasalam, dhibkooda iyo rafaadkooda iyo waxoodaba. waayo waxaa laga yaabaa inay wax badan kaa mashquuliyaan. qurbigii dhawaashaha aad u dhowdahay yaa laga yaabaa rakcada afaraad ee tahajudkana ku soo kacdo. rasuulka sal allahu calayh wasalam maxaa la tilmaamay? caaisha asagoo saa u agjiifaa inuu soo istaagay, wuu soo kacay, kaasay ku dhegtay. hayga tegin bay tiri qurbigaagii dhawaashaadaan jeclahay. idaa buu yidhi rasuulka caaisha, ilaahay aan caabuda subxaana wa tacaala. rabbigay aan caabuda idhaaf, rabbigay aan caabuda idaa. waa istaagayaa. salaad leyl waay, waa qiyaamuleyl. subxi baa lagaa soo dhaqaaji la'ya, subxii ayaa lagu soo kicin la'yahay. saa darteed walaalayaal
tobankan dambe wax badan oo cibaado laba jibaarsan baa la sameeyay aan sameeyno war qofka mar allaala markuu istaaga habeenkii ilaahay khayr fara badan buu siiyay adduun iyo aakhiro jannada maxaa lagu galay kaanuu qaliilan min alleyli maa yahjacuun wa bilasxaari hum yastaghfiruun waa nin cajiib leh qof habeenkii kacay waa da'bi iyo dhaqan lagu yaqaana dadka saalixiinta ah sariir waxaad ku jiiftaa heer sare ah joodariga kuu saaran xaalkiisa lama yaqaana suu yahay barkinta iskaba siidaa wax yar oo haddana maro qurux badan oo wadnan ama loof ku sawiran yaa dhexda fidsan waad ku jiiftaa busta naacim ah yaa kugu daboolan gabar yar oo qalanjo ah yaa dhinacaaga jiifta ka waran walaal si xaalku yahay marka nin noocaas ah haddii intuu indhaha soo kala qaado uu yidhaahdo alxamdu lilaahi aladii axyaana bacdamaa amaatanaa wa ilayhi nushur gabadhii gacanteeda saarnayd iyo lugteeda uu xagga isaga durjiyo allaahu akbar riico bustaha qaado iska tuura naacimka ah xasuusta jannada waxaa ku jira xasuusta waxa jannada laga cuni doono xuural caynta middaan mid dhaanta inay xagga jirto middaan beri bay kugu soo qalloocan cayi aflagaado xataa dumarka gobolka mid ah nasabadaada aabbaha awowga kulli waxay dhaafaan ma laha kuwan haddaan naar ku galno dhibkooda soo ma lihin intaasuu xusuustay waa kacqaaday waa kacay qabow buu ku weys qaatay tatajaafaa junuubuhum can ilmadaajic yadcuuna rabbahum khawfan wa tamacan wa mima rasaqnaahum yunfiquun waxay ka soo dhaqaajiyeen dhinacyaalkooda meelihii ay jiifeen tatajaafaa junuubuhum can ilmadaajic yadcuuna rabbahum rabbigood bay caabudayaan rabbigood bay tuugayaan khawfan wa tamacan cabsi iyo damac labadaba maxay ka cabsanayaan cadaabka maxay damcayaan jannada wa mima rasaqnaahum yunfiquun shilinkii soo gala nus bay ka bixiyaan waa dhiibayaan ilaa aakhir wax horumarsanayaan aakhir wax baa loo baahan yahay waxaa sadaqaysataad harsan waxaa sadaqaysataa lagu siin waxaa sadaqaysataa cadaabka lagaaga ilaalinayaa wa mima rasaqnaahum yunfiquun falaa taclamu nafsun maa ukhfiya lahum min qurati acyun jazaan bima kaanuu yacmaluun rasuulku markuu aayadda akhriya muxuu yidhi jannada waxaa ku sugan maa laa caynun ra'at walaa udunun samicat walaa khatara calaa qalbi bashar bani aadam qalbigiisana aan ku soo dhicin indhana aan arkin dhegana aan maqlin xaggee laga helaa gadaal walaalayaal raaxadeen way dambaysaa ha la tacbo ha la dhibtoodo ha la tukado ha la soomo xumaanta la iska daayo xaaraanta ha la joojiyo waxaan dhibaatada lagu soconayay la samayna aan iska ilaalino zinada aan aad iyo aad uga fogaana dhallinyaro wax badan ilaahay caabuda subxaana wa tacaala dhallinyaro soonku hadduu dhammaado soonka badiya dhallinyaro u istaaga ilaahay diintii subxaana wa tacaala dhallinyaro dad khayrkii wanaagga ku dadaala noqda war ilaahiina ka cabsada war shabaab iyo dhallinyaro ayaa nebiga garab istaagtay sal allahu calayh wasalam war dhallinyaray ahaayeen innahum fidyatun aamanuu birabbihim wasidnaahum hudaa tahriib oo soo duuduubmay maanta iyo beryahaanba yaa qurux badanoo magaalada degan mobil iyo facebook heblaaya saay heblaaya la hadlaa qoylada iga jooji wuxuu iibsanayaa ka dhagaha la gashto 4 dhallinyaro oo qol isla jiifta waay mid kastaa samcad baa dhagaha ugu jirta kulli markaad ka bixiso hal qur'aan iyo hal xadiid iyo hal qowl nebiga kuma jiro midna gabar baa ka qoslaysa midna hees baa ku jira midna muusig baa ka dhawaaqaya walaalayaal ummad si ilaa ugu naxariisana subxaana wa tacaala war see ilaahay noogu naxariisanaa ma diidannahay inuu ilaahay dhagxaan nagu soo qubo haddiisan naxariistiisana daboolin dhallinyaro rasuulku wuxuu dhahay dhallinyaroy war mid kasta oo baa'a agoodi kara ha guursado war qof kastaoo gabar maskax lagu dhaqo alla ka cabsi lagu dhaqo wax yaroo mushaara meel ka qaataa ha guursado waa indhahana waa ku laabmayaan xubinka tarankana waa ku ilaalsanaana dhallinyaro nebiga hadalkiisa dhegaysta sal alla alayh wasalam ibnu mascuud wuxuu leeyahay saasuu rasuulku noo dhahay haddaan dhallinyaro kooxdeeda nahay war saa sameeye indhahaaga hoosuu aadaya mtaqaanaa farjigaaga xibinka tarankana waa ku ilaalsanaanaya maxay bannaanka la taagtaageen dhallinyarada cishaha marka la tukado maxaa loo xaroon waaya wax ma jiro guriga shukumaankii saaki uu ku soo qubaysto kuu kuusano oo qoyaan ah yuu ugu taga hadduu tago iyo koobkii cana xali uu kuxbo dhulka ku dhegay wax kaleu u sii socdo male taasaa keenaysaa inuu halkaa taagnaado inuu masaajidka albaabkiisa istaago inuu wixii meesha soo mara fiiriyo dumar ah waman lam yastadic facalayhi bisawm qofkaan keri karin ha soomo buu dhahay nebiga sala allahu calayh wasalam ha soomo qofkaan awoodi karin warba amaysadi soo maaha intii alla ku deeqaayo soonka ku dadaal soonka wuxuu kaa goynayaa wijaa uu yaayo shahwadana wuu kaa yarayn ilaahina waa kuu dhowaynaa subxaanahu wa tacaala
laakiin saaxiib sireesa laguma dhihin, saaxiib hooseed hoos ka samaysa laguma dhihin. gabdhihii dhibaato fara badan baad ku haysaane ka daaya. subaxii waa la kicin la'yahay, xaloo dhan buu u sheekaynay, xaloo dhan buu wax been iyo waxaan jirin iyo qubxi ku daldalahay. saanaan ku yeela, intaan kaa bixina, kanaan ku yeelaya oo beentii ah. subaxiina waa ka dhuumana, wuxuu ka dansanaa muumilka. habeenkii waa haddana ku bilaabaya. dhallinyaro waxa idin xafidi kara waa soonka, waxa idin xafidi kara waa guurka, waxa idin xafidi kara waa taaca ilaahay, waxa idin xafidi karaa waa inaad ilahay u dhowaataan subxaana wa tacaala. soonkaa laga celin jiray kuwii hore, intay soonka badiyeen ay soonka laba jibaareen, yaa rasuulku wuxuu dhihi jiray saa ha yeelina. salaad baa laga celin jiray. waxyaabo fara badanoo noocaas ah. aawe saddexdii wiil ee inta guriga nebiga timid tiri camalkiisa noo sheega, markii loo sheegayna mid yidhi aniga maba seexanaya, habeen walbaa taagnaana. waa dhallinyaro, habeen walbaa tugan ilaan ka dhinto. kii kalena anigana dumarka guurkoodao dhan baan ka fogaanayaa. sokoraa dhammaatay, cafaayad dhammaatay, kan keen iyo maxaa lay dhahaya. waa ka iska dhaafaya ayagoo dhanba shartooda iyo fidnadooda. ka saddexaadna muxuu dhahay, anigana waa soomayaa dahriga oo dhan in allaala intaan noolahay. warsaa ha yeelina, waxa laga celcelinaya waa soon, idinkana waxa laydin faraya waa soon. intaad soomi lahayd waxaa kaaga fiicnaa dembi gasha miyaa? inaad gacanta ka qabsato gabadhood magaalada la marta miyaa? dhallinyarada qaarkood waxaad moodaaba in jannadii ilaahay loogu ballanqaaday saasuu u socdaa, laba gabadhaa dhexda oga jirta. markaasaa wuxuu u soconaaba si mataqaanaa shaydaankaba ka xun, siw u soconaya mutakabirnimada iyo isla weynida iyo waxyaabaha noocaasoo kale ah. meeshaa masaajidka albaabkiisu soo maraa, xataa hadduu xishoon lahaa boocboocyadaa iyo meelaha jiiqda iyo keentuu la marla waxbay ahaan lahayd. idaa lam tastaxyi fasnac maa shita. haddaadan sariig lahayn waxaad doonta samey buu dhahay nebiga. marka tobankan dambe aad aan u dadaalno, tobankan dambe ilaahi subxaana wa tacaala aan barina soonkaan soo soonnay inuu ilaah naga aqbalo, juhdigana aad loo laba jibaaro. qofkii ictikaafaa aad buu u fiican yahay, ilaah subxaana wa tacala agtiisa ajir dheeraada ayuu markaa ka helayaa. qofkii tobankan dambe kaca, nebigaa yidhi man qaama laylata alqadri iimaanan waxtisaaba gufira lahu maa taqadama min denbihi. intaasoo dhan waxay tilmaamaysaa tobankan dambe qiimaha iyo fadliga iyo wanaagga uu leeyahay. halkaa habeen sadaqaad la baxdo, salaad aad dukato, baryo aad rabbi barido, tasbiix aad la timaado, khayrun min alfi shahr. kun bilood way kaaga khayr badan tahay. laga yaaba inuusan cimriga xataa gaari lahayn. markaa kadibna gebagabadii soonkaa la gaarayaa, soonkii baa dhammaanaya. mar allaala markuu dhammaadana ummaddu waxay noqoneen raabix iyo khaasir, qof ribxay oo liibaanay oo guulaystay oo soonkii alla ka aqbalay, iyo khaasir khasaaray, hoogay, dulloobay. dadka labadaasay u kala qaybsami doonaan. ilaa xaq waxaan ka baryaynaa inuu nagu daro dadka raabixiinta ahoo ribxi doono faa'idi doona, soonkoodana ilaahay ka aqbali doono subxaana wa tacaala. ilahay waxaan ka magangelaynaa dadka khasaaray ee soonkooda inta lasoo duudo wejiga looga soo tuuray ee rabbi dhahay hoos soonkaaga uma baahniyo, waciyaadu billaah. kuwaan ilaahay naguma daro subxaana wa tacaala. inta xanuunsan caafimaad taama ilaahay ha siiyo, inta jiran ilaahay caafimaad taama allah ha siiyo, inta xanuunsan allah ha caafiyo, inta dhibteena dhibka allah ka qaado, inta kurbaysan kurbada allah ka faydo, in allaale inta dhibaataysa dhibka allah ka rafaco, shari shaydaan allah naga xijaabo. dadka saa'imiinta soonkooda la aqbala allah nagu daro, baabu rayaan dadka ka geli doona allah nagu daro, dadka laga soo celin doono fadhin doono meeshooda ilahay ha naga najiyey subxaana wa tacaala. ilahay quluubtana isu koos dumo, salaadaha allah naga aqbalo, cibaadaadka iyo khayrka iyo wanaagga sida aan ugu socono ramadaanka intaan ku jirno markuu dhammaadana ilahay saasoo kale ha noo qandiro. ilahay subxaana wa tacaala intii xumaanta ka soo tagtay ramadaan dartii, goobihii qayilaadda, meelihii fisqiga, meelihii masaajidka soo buux dhaafiyey, ilahay sidooda allah noogu sugo, masaajidkii beydka allah ku sugo. shaydaan marka la soo daayo wuu soo noqon doonaa, masaajidka albaabkiisuu nagu sugi doonaa, intii ka soo firxatuu raadin doonaa inuu ku darsadee. shartiisa allah naga xijaabo, shartiisa allah naga haayo. tobanka dambe kuwa ka faa'iidaysta allah naga dhigo. ilaahi subxaana wa tacaala laylat lqadri kuwa waafaqa rabbi allah naga dhigo. allahuma inaka cafuwun tuxibu alcafwa facfu cana, allahuma inaka cafuwun tuxibu alcafwa facfu cana, allahuma inaka cafuwun tuxibu alcafwa facfu cana. wabillahi towfiiq, wallahu subxaanahu wa tacaala aclam.
أخيارتا سلف ميديا كحران الشيخ المحاضر دو دميي إلهي سبحانه وتعالى أجري حسنات سغنا كسيو أنا إلهي سبحانه وتعالى كوبي كعمل فلا وعدقاس كان أجرسي إلهي سبحانه وتعالى نغدقو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.